diinteena islaamku waxay xaraantinimaysay tuugnimada ama waxaditaanka. halkani waa koonfurka Gabadh waxaana uu ku yaala agagaarka macmacaalaha nasiiba ee suuqa hoose ee kasoo horjeedka istaanka basaska xiraawr. waxaana koonfurkaasi laga xaday moobil. daawadayaal saad udarkasaan muuqaalka waxa xafiiska gudaha u fadhida hal gabadh, waxaana xagga shishe soo taagan hal gabadh oo niqaaman iyo sidoo kale cunug yar oo ay wadato. saad muuqaalka ku arkaysaan waxa hadda kacday gabadhii xafiiska gudaha ugu jirtay, kamanaysa shakiyeen gabadhani xafiiska kula jirta ee niqaaman iyo sidoo kale cunug yar ay wadato. xafiiskana dibadda ayaa uga baxday, balse muuqaalka aynu sii wada daawano. waxa xafiiska ku soo hadhay gabadhii niqaamka xidhneed iyo sidoo kale wiilkii yar ay wadatay, balse aynu eegno waxa ay sameeyaan gabadhan iyo wiilkan yar ay wadato. gabadhani niqaamka xidhan ee banaanka ka taagan xafiiska ayaa waxay tunka soo qabatay wiilkii yar, waxayna ay ku tidhi wiilow moobilka soo qaade, balse aynu eegno waxa uu sameeyo wiilkan yari iyo habka uu moobilka u soo xado. wiilkii yara waxa uu gudaha u soo galay xafiiska, waxaana uu gacanta ku dhigay moobilka isagoo caloosha geliyay ayaa uu dibadda xafiiska u baxay, sidaasina waxa uu ku xaday moobilka. daawade haddii aad ka bogotay muuqaalkani ha noqon tugu gargaare ee fadlan sheer garee muuqaalka lana wadaag asxaabtaada kale. haddii aad wiilkan yar iyo sidoo kale gabadha meel ku aragtana u soo sheeg koonfurka Gabadh ee ku yaala agagaarka nasiiba ee kasoo horjeedka istaanka basaska xiraawr.